weli waxaa taagan xiisada colaadeed u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland waxaana saacadihii ugu dambeeyay deegaanka Tukaraq iyo deegaamada hoos yimaado labada dhinac ay ku sugan yihiin gaari ciidamada fara badan oo ka kala tirsan Puntland iyo Somaliland. Saraakiisha ciidanka difaaca Puntland ee ku sugan jiida hore ayaa sheegay inay gudanayaan waajibaadkooda isla markaana ay diyaar u yihiin difaaca dalka. waxaana ay shacabka ugu baaqeen inay ka qayb qaataan xoreynta gobolka Sool iyo guud ahaanba deegaamada ka maqan gacanta Puntland. waxaa wararkii ay sheegayaan in laga cabsi qabo dagaal halkaasi ka dhaca maadaama ciidanku ay isu jiraan masaafo aad u yar. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo saraakiil kale oo ka tirsan Somaliland ayaa marar badan dalbaday in wadahadal lagu dhameeyo xiisada ka taagan deegaanka Tukaraq inkastoo bilowgii dagaalka ay dideen in halkaasi wadahadal laga galo isla markaana ay sheegeen in ay xoreyn doonaan ilaa iyo Yuucada. hase yeeshee xaaladda oo sii qaraaratay iyo dagaalka oo ku soo cuslaaday ayaa sababay inay dalbadaan in wadahadal lagu dhameeyo xiisada ka taagan gobolka Sool. madaxda ugu sareysa Puntland waxay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin inay wadahadal iyo gorgortan ka galaan ciidda Puntland.